madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheikh Maxamuud waxba kama duwana labadii kala taliye ee dalka soo martay ee kala ahaa Maxamed Siyaad Barre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Siyaad Barre waxaan ku xasuusanaa in uu duqeyn iyo cadaadis u geystay shacabka Soomaaliya, waana madaxweynaha kaliya ee taariikhda soo maray Soomaaliya hubka dawladdu ay lahayd ay ku gumaaday shacabkeeda. haddaba muxuu sameeyay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud? madaxweynahan hadda talada haya waxay ishayaan laba dawlad goboleed ee kala ah Jubbaland iyo Puntland, waxaana ay dawladda federaalka Soomaaliya xayiraad ku soo rogtay qaar ka mid ah duulimaadyadii tagi jiray Jubbaland, gaar ahaan kuwa taga magaalada Kismaayo. sidoo kale waxa ay intaasi ay ku sii dartay dawladda duulimaadka halkaasi tagaya in ay canshuurta ay ku sii kordhiso, haba ugu badnaatee maamulka Puntland oo isna aad canshuurta lagu kordhiyay. warkan aan ku soo gudbinayo waxa uu ku soo aadayaa xilli ay warbaahinta ay la hadleen ganacsatada, waxaana ay sheegeen in uu amarkaasi uu ka soo baxay dawladda federaalka laguna joojinayo diyaaradaha qaadka geyn jiray magaalada Kismaayo. amarkaasna waxa uu dhaqan galayaa Jimcaha maanta ah. ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa lagu wargeliyay in wixii ka dambeeyay 22 bishan oo maanta Jimco ah aysan ka degi doonin magaalada Kismaayo qaadka, iyadoo uu qaadka uu ka mid yahay ganacsiga ugu ballaaran ee ka socda Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. haddaba madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu dhaamaa kala taliyihii dalka soo maray ee Maxamed Siyaad Barre. waxa ay hayaan waa Axmed Madoobe ay isma hayaan ganacsato iyo dad shacab ah ee ku nool waxa ay ka helaan ganacsigooda. dawladdu haddii ay tilaabadaas qaadayso waxaa la rabay inay u diyaar garowdo ama ay isku diyaariso sidii dadkaas ganacsigooda loo joojinayo ay bedelkooda ay u heli lahaayeen. haddaba meesha waxa ka jira dawlad ma aha, xataa iska dhaafay dawladnimo, dhaqan dawladnimo xataa uma dhowa. waa koox maafiya ah ee doonaya dadka masaakiinta ah ay ku dulmiyaan shar dawladnimo. haddii aad taas ay la qabto commentigan ku waarko. halkan waa Xogsare TV, subscribe-isa. Tadambe u kulmi doona siyaasi nabadgelyo.